وقاس أبقى العصب أنا كومسة في ديساي أنا كوصاي هذه قحبدي كوما تكتب وصي أي أيدو ده شجرنو ضدا هير وحنكو قارسيك ورا أضل لايف كجرت لايف كي أنت سوقشت ومدة توستي أقول إن كان نصب سنة هاي واحد نصب متجانتي كده شواسي الفيرسنا يا الدعوة أدت كادي كدعوة عينا تسينا متجان تاني كنا سبت إلهام الناس متجان والله الله الحمد قال عليه وردي نايا شهر 2020 يا معنا أهويا ولا لنا انتو waxaan oo wanaagsan aqyaarta wadaan ku saaxiibnay idilkiin baalka nagala daawanaysan waa Socod Media oo aad ga daawataan barnaamijyo iskugu jira arrimaha fanka dhaqanka iyo waliba arrimaha bulshada dhamaantiinba muuqaalka la eegarayo cid walba muuqaalka la eegta qoobta wax Rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna umuuraha leedahay Ilaahay inuu sahla Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeya inta awlaadoon kaana Ilaahay awlaad baari asiyo inta gurdoon kaana gur wanaagsan ee mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasiyo qof walba muuqaalka la eegta qoobta lana sii wadaaga saaxiibadiisa waxa Rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryayna dambigood iyo dambiga waalidkood inuu eeba dhaafaa ومالين جمعة جنة الفردوس الأعلى إلهي وكعز ما حاسدك وعلنا هي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفرح بإذن الله الكريم هو قصارى يكون بينيا لما أن أمد الصومال رب سبحانه وتعالى عن كبر ينال الناس رجسي قرك سؤوسيو أنت حنوصلنا إلهي حنونك هقدر القاعدة عافمات هوجب بدلو لما أنت با أنت أمورها لأن إلهي أموره ذا وسهل وحن يقدرنا فضيحات وين وسوى جهدي أبوكر مهدي أو قابل سن تلفزيون كيونيفرسال جلتان كأم سكود بريد كرباية ذا كاسو يوتيوب كقسم يلا حاجات وترى بدن وحنا أن يقدرنا وربحين تاسعيد وفضيحات أبوكر مهدينا بربر صعطوا فضيحات كلو جود أو تلفزيون كيونيفرسال سوى جهدي تاسو كأدن إن قبلوا واحد جري أما كجل رباية ذا يونيفرسال فرصة قبطي إن برها بولشة كأف لقادين يعني قبيلة صومالية كواس وقبيلة ذا سكو شيء إن دمان توده يهين شق جامع أن دين لهن إيمان عن لهن سدا قبلها سي أفكو ده يكو شيء يعني كنا أف لقادين يعني قبيلة ذا سي صومالية ذا يكجران الشريف علومه يولي با قلب قلوا بولشة صومالية عرنت أسي يعني فلقين دونها دو الله أود له وين أبوكر مهدي أيها لقود دعوة بوليسكا مقالة لندن وحنا عرنت أسي سمعسك قبل لقود مقعبا نمعو أو كم دهيد قبله جلسي روايدا كافي kala dheeri oo sheegtay in Abuukar Mahdi uu farxumeeyay isla markaana uu ku sameeyay blackmail oo sida ay sheegtay nimco waxa ay sheegtay in qof walba oo jiraya riwaayadahaasi oo haweenka riwaayadaha jira ah oo Abuukar Mahdi ku qasbay inuu u galmoodo kadibna uu soo caan bixinayo sida nimco ay ku dooday nimco oo ka hadlaysay Facebook ayaa waxay sheegtay in arintan ay u gudbisay booliska magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska isla markaana arinteeda ay ku jiraan booliska Ingiriiska waxay sheegtay nimco inay ugu baaqayso gabdhaha walaalaheeda iyo kuwa hawlada waa bari ka tirsanay Abuukar Mahdi oo isku dirayo in ay ka fawjignaadaan isku dirka Abuukar Mahdi waxaana sidoo kale nimco ay sheegtay in arintaasi ay u hayso marag iyo cadeen in gabar walba oo ka howlgalaysa ama riwaayadaha jiraysa in uu ku xiro galmo hadii galmo ay u diidana uusan shaqada siinin ama uu ka ciriyo shaqada taas oo ay sheegtay nimco inay u gudbisay kiiskaasina booliska London uu hor yaalo sida nimco ay ku dooday gabadhan nimco la yiraahdo waxay sidoo kale ay sheegaysaa in Abuukar Mahdi arintan muddo dheer uu soo waday laakiin ay rajaynayso ama cadaalad ay ku sugayso booliska magaalada London iyo sidoo kale garsoorka maxkamadda magaalada London hadii arintan dhab ay noqoto waxa fadeexad weyn ay soo wajahaysaa telefishinka Universal oo xataa ku mutaysan kara in ruqsadda lagala noqdo isla markaana la xiro adduunka waxa dambi weyn ka ah in gabar aad u galmootid si aad shaqo u siisid oo aad tiraahdo shaqan ku siinaya oo ku galmoonaya waa dambi weyn oo qofka uu ku mutaysan karo ciqaab aad u adag Abuukar Mahdi ayaa hore waxay iskugu dhaceen fanaaniin badan oo caan ah oo habla ah kuwaas oo ka tagay jilistii ay u sameyn jireen telefishinka Universal ee xaruntiisu ay tahay magaalada London dhanka kale maalmaha la soo dhaafay ilaa xilligan waxa barta Facebook ee bulshada ku kulanto Instagram-ka iyo waliba baraha kale ee Soomaalida ay u badan yihiin si weyn ugu socda aflagaadada ay geysanayaan gabdho u shaqeeya Abuukar Mahdi kuwaas oo Abuukar uu ku sheegay in ay yihiin fanaaniin gabdhahaas ayaa u gafaya qabiilada Soomaaliyeed qaarkood gaar ahaan qabiilada gorgaartaha ama madhibaanka waxa kamid ah gabdhahaasi gabar lagu magacaabo Nasteexo oo jira u ah Abuukar Mahdi iyo gabar kale oo Muno lagu magacaabo Muno ayaa si xun u aflagaad
aflagaadaysay qabiiladaas oo waxay leedahay aniga waxaan ahay nasab waa kaalaan dheersanahay oo waxay markaasi caynaysaa ilhaan xarago iyo gabar kale oo xamdi lagu magacaabo waxayna sheegaysaa muno inay kalaan dheeraysan tahay ilaahay ayada nasab uu ka dhigay ilhaan iyo sidoo kale nimco iyo xamdina ilaahay uu ka dhigay kuwa liita ah ilaahayna ayada uu sarmariyay taasoo dambi weyn ah waxayna sidoo kale ay sheegaysaa in qabiilada Soomaalida ay u yaqaaneen madhibaanka oo waxay leedahay waa qabiilo ilaahay uu duleeyay ilaahay uu baabi'iyay waa dadan ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida ayada ay leedahay waxay sheegaysaa muno in qabiiladaasi ay yihiin kuwa liitayaal ah waana gaf iyo weliba dambi weyn oo muno xaq ilaahay iyo weliba ummadda Soomaaliyeed ay ka gashay waxaa arrintaasi la jiibinaysa gabar kale oo ayadana Abuukar Mahdi u shaqaysa oo lagu magacaabo Nasteexo laakiin waxay dharbaaxsho xanuun badan ay kala kulmeen bulshada Soomaaliyeed oo ku farcelinaya commentiga kuwaas oo sheegaya in xashiishka ay iska soo badiyeen gabdhaha waa sida bulshada ay sheegayaan oo difaacaya qabiilada Soomaaliyeed ee la dulminayo eena dulminayaan islaamahan waaweyn ee u shaqeeya Abuukar Mahdi iyo Injineer Axmed Deega iska telefishinka Universal waxaana arrintan ay socotaa muddo 3 maalin ka badan 4 maalin oo gabdha sheeganaya in islaamo sheeganaya gabdha mehe waa islaamo waaweyn oo la eg hooyooyinkeena oo caynaya qabiilo Soomaaliyeed kuwaasi oo u gafaya qabiilo Soomaaliyeed oo leh Sheekh iyo Shariif hadana sheeganaya inay ka shaqeeyaan telefishinka Universal ee salgiisu u yahay magaalada London ilaa iyo hadda ma jiro wax war oo ka soo baxay Injineer Axmed Deega iskala Universal ee gabdhaha haweenkan ama hablahan caynaya qabiilada Soomaaliyeed hadana sheeganaya magaca in ay ama sheeganaya magaca telefishinka Universal ilhaan xarago oo ayada weerar culus lagu qaaday ayaa ilaa iyo hadda aysan ka hadlin arrimahan socda waxaana ay tahay mid aamusan waxaana gabdhahan ama islaamahan Muna iyo Nasteexo ay sameynayaan gaf weyn oo ay u geysanayaan qabiilada Soomaaliyeed waxaa dadka qaarkiis oo fariimaha commentiga qoraya ay leeyihiin islaamuhu markay hadlayaan xaaladoodu caadi ma aha hawada ay ku jiraan waa sida fariimaha commentiga lagu soo qorayo laakiin qof walbo daawada muuqaalkooda wuxuu isleeyahay islaamaha waxba ka qaldan maskaxiyan maxaa yeelay sida ay ugu gafayaan qabiilada ma dhibaanka la yiraahdo ama qabiilada beelaha shanaad ama beelaha la dulmiyo ama beelaha tirada yar lagu tilmaamo sida ay ugu tumanayaan ayagoo isku arka in ay yihiin dadaan la qaban karin oo cirkaas maraya qabiiladooda laakiin kuwaan ay yihiin kuwa hoos oo majaac hadda waa aqligooda da'dooda iyo aqligooda isma laha waxa lagu macnayn karaa in maskaxiyan haweenkan aysan fiyoobeen oo maskaxdeedu la yihiin ama ay daraagaysan yihiin haddaba waxaan sugaynaa jawaabta telefishinka Universal Abuukar Mahdiga YouTube ka lacagta ka raadiya uu ka bixiyo gafka loo geysanaya qabiilada Soomaaliyeed qaarkood